halkani waa magaalada Khartoum ee caasimadda dalka Suudaan. Magaaladani waxaa ku nool Soomaali lagu qiyaaso ilaa 6,000 oo iskugu jirta arday iyo jaaliyad. Haddaba barnaamijka Ramadaanka ee magaalada ee SNTV ayaan ku eegi doonaa sida Soomaalida ku nool Suudaan u soomaan dalkani. Dal walba oo ku yaala dunida dusheeda waxa uu leeyahay dhaqan iyo caado soo jireen ah. Dalkani Suudaan marka la gaaro bisha barakeysan ee Ramadaan waxa uu leeyahay dhaqan uu kaga duwan yahay wadamada kale ee Islaamka. haddii aad joogto Suudaan bisha barakeysan ee Ramadaan isla markaana aad sooman tahay marnaba ma laga yaabo inaad afar ku weydo dalkani gudihiisa. Suudaan waxa dhaqan ka ah bisha barakeysan ee Ramadaan in wadooyinka xaafadaha aad ku arkaysid gogol ama dirin loogu talagalay in dadka lagu afuriyo iyadoo gogoshaasi ay u dhan tahay dhammaan wixii cunto ah oo lagu afuri lahaa. iska daa inaad lugeynaysid xitaa laguma ogolaanayo haddii aad wadatid gaari inaad hormarto wadooyinkaasi ay hortaalo cuntada. Cabdiweli Xasan Xuseen Fadilato ah gudoomiyaha jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalkani Suudaan ayaa iga sheekeeyay dhaqankaasi Suudaanta gooniga u ah. haddaan ka hadlo Suudaan iyo Ramadaanka waddanka Suudaan waxyaabo badan oo looga baahan yahay runtii inaan uga dayanno haddaan nahay shacabka Soomaaliyeed ayaa jiro oo waxaa ka mid ah bisha barakeysan ee Ramadaan waxa waddankan oo dhan uu ku dhisan yahay wax la yiraahdo al-karam wa tasaamuh. bishaas waxaa arkaysaa dadka oo dhan waxay u soo baxayaan shawaaricda wadooyinka imaanayaan shanta guri ama 10 guri oo iska soo horjeeda oo dhan waxay dhiganayaan dareemahooda oo waaweyn halkaas ayay afurka nin walba wuxuu awoodo oo soo bandhigaya. qofka wadada marayo ma mari kartid wadada hadaa baabuur wadatid iyo hadaad iska socotid labadaba ilaa in aad ay ku fadhiisiyaan oo ayaga aad la afurto ma ogay si kale ma lahan. taas waxay ku tusaysaa tasaamuxa iyo karamka ay shacabka Suudaan ay leeyihiin oo runtii ay wax soo socday aalaaf siniin caadaadna u ahaa dhaqankaas wanaagsan waana loo baahan yahay runtii annaga haddaan nahay shacabka Soomaaliyeed usrada qaniga ah iyo usrada kale oo daciifka inay iskaalmaystaan la isdhex galo Ramadaanka wixii aad awoodid oo soo bandhigi kartid walaalka u geyn kartid u geysid wixii ayaga ay hayaan ay la imaadaan meel lagu wada afuro runtaas taas waa caado fiican oo dhihi karo caadaadka u baahan in caalamka laga keeno oo shacabka loo keeno waayo waa caado fiican waaye waa tasaamuxa waa diinteena islaamka waxyaabaha ay ku dhisan tahay. shacabka Suudaan oo dhanba hadaad aragto ma arkaysid qof gurigiisa ku afurayo wadada oo dhan wadooyinka oo dhan waa gogol yihiin halkaas ayaa wax lagu wada cunayaa lagu wada shaaheynaya la isku musaamaxaya. Cabdiweli Xasan Xuseen Fadilato ayaa mar kale weydiiyay isdhexgalka ka dhaxeeya shacabka Suudaan iyo jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku nool dalkani Suudaan markii la gaaro bisha barakeysan ee Ramadaan. runtii jaaliyadda Soomaaliyeed ee ku dhaqan dalka Suudaan iyo shacabka Suudaan waxaa naga dhaxeeya isdhexgal bisha Ramadaan oo ah waxa arkaysaa jaaliyadda degan waddanka oo ayaga naftirkooda soo baxayo oo dhex galayo walaalahood shacabka Suudaan waa bil runtii aan isdhexgalku aad u badan yahay oo ayagana ay soo galaan annagana aan dhex galno. waddankan aad baa looga jecel yahay Soomaalidana runtii waxay tustay taas ayada ah kalsoonidaas ay siiyeen walaalahood Suudaan in ay yihiin dad ayaga ka mid ah oo xaqiiqatan wadamada kale oo dhanba uga dhow. dhanka cunooyinka Suudaan markaan u nimaadno waxay leeyihiin cunooyin gooni ah oo ku duwan kuwa Soomaalida caanka ku tahay. ikasi xogay hore ee midowga ardayda Soomaaliyeed ee Suudaan Cabdiraxmaan Maxamed Saciid ayaa sharaxaad kooban iga siiyay cunooyinka Suudaantu caanka ku tahay. cuntooyinka dalka Suudaan iyo dalka Soomaaliya aad bay u kala duwan yihiin. dalka Soomaaliya sambuuska iyo waxyaabo badan oo laga xiiseeyo ayaa jira balse dalka Suudaan waxaa laga xiiseeyaa cuntooyin u gaar ah dalka Suudaan kuraasa dagliya iyo waxyaabo badan oo Suudaan laga isticmaalo sida cabitaanada karkade iyo waxyaabo la mid ah. dhanka taraawiixda si caadi ah ayaa loo camiraa masaajidada iyadoo ardayda Soomaaliyeed ay wax ka barata dalkani Suudaan iyo jaaliyadda intaba ay camiraan masaajidada. dhanka kale markaan ka hadlayno salaada sida salaada taraawiixda Soomaalida aad bay u soo camiraaneen waqtiga la tukanayo salaada taraawiixda khaasatan masaajidka weyn ee Jaamacadda Afrika Alcaalamiya aad ayaa loo soo camiraa. maqaayadaha Soomaalida markaan u nimaadno Suudaan waxaa ku yaalo 2 ilaa 3 maqaayado oo Soomaalida ku dhaqan Suudaan ka cunteeyaan. Sheekh Mandi waxa ay ka mid tahay maqaayadaha ugu weyn ee Soomaalida leedahay waxaana maqaayada lagu kariyaa cunooyinka Soomaalida caanka ku tahay sida bariiska baastada iyadoo bisha barakeysan ee Ramadaan lagu sameeyo sambuuska.
Ustaad Xasan Barre Maxamuud oo kamid ah mas'uuliyiinta maqaayadda ayaa warbixin iga siiyay sida Soomaalida ku dhaqan Suudaan ay ugu afuraan maqaayadan. Ilaahay subhanahu wa ta'ala ha inagu gaarsiiyo bisheeda inagoo nabad ah caafimaad qabna nin walbana hadafkii iyo ujeedadii uu lahaa xaqiijiyay. Inta kadib hadii aan tilmaano sida ay dhalinyarta ama ardayda Soomaaliyeed ay uga afuraan maqaaxiyaha ku yaala magaalada Tan Khartoum waxa weeye si aad iyo aad u fiican sababtoo ah waxa weeye waxa loogu sameeyaa cuntooyinkii ay Soomaalidu dhaqanka ama caadada ay u lahaayeen sida bariiskii iyo baastadii iyo sambuusihii iyo wixii maaragtay guryaheena lagu sameyn jiray baa lagu sameeyaa walidaalika ardayda iyo maaragtay aqoonyahanka jooga Suudaan aad iyo aad bay ugu fiican yihiin waxna si wanaagsan bay uga cunaan. Aqoonyahan Maxamed Xuseen Siyaasi waxa uu kamid yahay ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barata Suudaan waxa uu dalkani ku soomay ilaa 5 sano wuxuuna iga warbixiyay farqiga u dhaxeeya markii uu Soomaali ku soomayay iyo hadda uu Suudaan ku soomaya. markaad dalkaada ku soomaysay qoyska la nooshahay ala soomaysay markaad qurba ku nooshahay la soomaysay farqi weyn u dhaxeeyo runtii aniga 5 sano ku dhawaad ama 6 sano maanan ku soomay dalka Soomaaliya waxaan ku soomay dalka Suudaan runtii way ka duwan tahay markaad qoyska la soomaysay waxaad dareemaysaa farxad iyo waxaad dareemaysaa Ramadaankii oo aad ku soontay si aad iyo aad u qurux badan aad u wanaagsan laakiin markaad qurbaha ku nooshahay aad ku soomaysid runtii waxaad dareemaysaa hawlo far badan oo culus iyo wahsi badan oo ka galaa inaad hawsha afurka iyo waxa iyo suxuurta aad diyaarsatid bacdama Ramadaankii kale maartay markaad waalidka la soomaysid ay ku diyaarinayaan dhaqankan wanaagsan ee Suudaanta caanka ku tahay ayaad ku arkaysaa qaar kamid ah magaalooyinka caalamka ee jaaliyadda Suudaan ay ku nooshahay iyadoona ay wanaagsan tahay in lagu daydo dhaqankaasi maadaama ay tahay hadafka u weyn in la afuriyo qof dhowr saacadood soona. Yusuf Maxamed Macalin Kashmir barnaamijka Ramadaanka iyo magaalada SNTV magaalada Khartoum ee caasimadda dalka Suudaan.